dhammaan culimada agaasimaha waaxda arrimaha diinta ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka Sheekh Cali iyo Ustaad Tuuxow iyo culimada kaleeto Sheekh Shaafici iyo sheekheena Sheekh Cumar iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaam kadib ahmiyadda meesha maanta aan u joogno way ka weyn tahay munaasabadaha kaleeto ee sida caadiga u dhaca oo munaasabad ku saabsan masaajid si gaar ah haddana u khusaysa taariikhda facal weyn ee masaajidda ay ku leeyihiin dalkeena Soomaaliya taasoo loola jeedo horeynta ay horeyso diinteena islaamka soo gaarida dalkeena ay soo gaartay si gaar ahaan Soomaaliya si guud geeska Afrika inay tahay taariikh aad iyo aad u horeyso adduunka dadka ka shaqeeya anthropology-ga iyo waxa la mid aahaarta qoda asnaam beriyo kumaan kuna sano ka hor caabudi jiray soo saara si loo cabiro ummado naga horeeyay meelahay ku noolaayeen iyo siday u noolaayeen iyo iyadoo culumta casriga la adeegsanayo laakiin anagu waxaan ka sheekeynaynaa waxay tahay soo galidii islaamka uu soo galay geeska Afrika wixii taariikhyana ay ka qoreen oo buugaag iyo kutub lagu qoray markii laga yimaado aahaarta iyo astaamaha u ah calaamadaha diinta islaamka ee masaajidda ugu horeeyaan oo muuqda oo waddanka ku yaala in aahaarta la ilaaliyo dadka wax ka qora taariikhda iyo jiilasha soo socda ama waxaa qoran akhrin doono tawthiiq iyo inay sugtaan doonaya marjic iyo taariikh si ay ugu noqoto raadka iyo islaamiga ahna loo ilaaliyo ujeedka ugu weyn horta waa taas مساجد إلهي لا إسكال سبحانه وتعالى سيد إلهي فرانك فشهده وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هذا وحي أستاني علامة يهين إسلام لماذا من لماذا أمدا أيضا اللي أبيه وليبا مساجد ومدى مسلم كماشي وجوه سيد قصر الرئاسي وكلاته إذا هذا كليا وإن إلهي لقوا عابدو أدومدا الله يدوميه سنالي يعني كل مانو إلهي أدومده ku caabudaan kaliya ma oo marba marxalada taariikh uu soo maray laakiin hadda markaad fiiriso kuwa Yurub ku yaala iyo Mareykanka reer galbeed masaajidda ku yaala mar waa madaraso mar waa goob Ilaahay lagu caabudo mar waa meel madadaalada iyo caruurta loogu sameeyo mar waa maxkamad waa qadaya garsoor ku sameeya mar waa la talin iyo wuxuu ka shaqeeyaa qoysaska burburaya iyo la talintooda mar waxaa lagala taliya guurdoonka marka shaqo ka baaxad weyn salaada iyo quraan akhriska kaliya ayuu masaajidku loo qabtaa sidaas oo islaamku ku bilowday xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam oo masaajidka nabigu wuxuu ahaa goob diinta dadka laga baro ilaahay lagu caabudo ciidamada laga abaabulo laga diro garsoor oo ummadda lagu kala garsooro qadaayaadka masiiriga ee ummaddu ay leedahay taladeeda iyo go'aanadeeda lagu gaarayo iyo howlo aad iyo aad u tiro badan ayuu masaajidku qabanayay waa meesha kaliya ninka faqiirka ah iyo kan taajirka ah kulligood ay ku siman yihiin iyo waxa ugu meesha kaliya midnimada ummadda hadday qalbi tahay iyo hadday jir tahayba iyo hadday muuqaal tahayba ay astaan u tahay salaada markii la galo hal qof baa tujiya dadka halkaa 100 saf 200 saf 10,000 5,000 waxay doonaan dadku ha aadaan hal imaam bay ka amar qaataan markuu xirtay xirtaan markuu rukuucaan lagama rukuuci karo salaadu way buraysaa hadii laga rukuuco waxay astaan iyo calaamad u tahay taas oo lagu barayaa hoggaanku inuu hal u yahay uusan dalku laba hoggaan yeelan karin hadii Umarna uu ku tilmaamay seefta dalkeeda laba seef ma wada gasho halka gal hal seef bes ah gasho marka imaamka sida looga dambeeyay sidoo kaleeto midabta koor mare wadad waa siman yihiin waxaana lagu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dadku haday og yihiin safka hore iyo aadaabka faa'iidada iyo fadilada ku jirta dadku way u soo kala tartami lahaayeen ayagoo dabada ku siqaya wax soo galaan markay tabar kale ay waayaan
meesha marka waxaa lagu calaamadeeyey fadli gaara yaa waayeela yaa dhalinyaro ah yaa xanuunsan yaa midna lama fiirin taa marka waxaa dhammaantoos istawugaa ilaahay safkaasi ka siman yihiin male midabta kor male qofkii soo hormaraa iskale safka iyo fadiiladaas marka anagu ka wasaarad ahaan muhiimad gaara ayay noo leedahay ilaalinta astaamahaasi iyo ku faanista masaajidkan hadda aan joogno dad badan baa ka aflaxay oo iska dar Soomaaliya kaliya tahay adduunyada oo dhan diinta iyo gaarsiinta dacwada taariikhdeedana tabcan waa laga warhayaa ilaa subxaanahu wa tacaala ka ajarsiiyo culimadii sababta u ahayd masaajidda nuurintoodii magacooda inuu waaro intii dhismahooda ka qayb gashay intii diinta ku akhrin jirtay intii ka aflaxaday dhammaantoodii intii ilaalisayba waan uga mahadcelinaynaa ka wasaaradahan oo ku faraxsannahay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hayaan dhalinyarada isku abaabushay si guud ilaalinta aathaartaasi si gaara masaajiduna waanu ka wada shaqayn doonaa wax badan sida loo dayactiri karo masaajidaas dadka maamula tababaro loogu samayn karo loo daryeeli lahaa kitaabada qur-aanka ay u baahan yihiin tababarada ay u baahan yihiin kii dayactir u baahan sidii loo dayactirinta baan ka wada shaqayn doonaa aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu